عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa ka hadlaynaa faa'iidada uu leeyahay malabka. run ahaantii malabku waxyaabo badan ayuu faa'iido u yahay. waxaa ka mid ah cuncunka dhuunta waa u daawo. waxaa kaloo uu daawo u yahay wuxuu dhisaa difaaca jirka, miisaanka wuu dhimaa, cudurrada wuu daba waxyaabahaas iyo waxyaabo kale ayuu daawo u yahay. haddii aan ku hormarno qorshaha raashin qaar maalin walba, haddii aad tahay kafee cabe, fadlan yareey, waayo wuxuu dilaa waxtarka malabka. koob shaaha aad in yar oo malaba kaga dar, xitaa haddii aad biyo ku darsato waad cabi kartaa. haddii aad u cun qabtid oo dhuunta ku cunaysana, waxaad sameynaysaa riixaanyo. waa mid aad ugu wanaagsan malabka, wuuna daweeyaa. haddii aad joogtayso tijaabo la sameeyay ayaa lagu guuleystay. shakhsiyaad meelo jeermiska badan, waxyaabo badan ayuu qabtaa malabka. marka faa'iidadiisa waa